ها مي مقلسة abti aadan kuu maqlaa اوكي dadku marka xogaa waxa u malaysa dadka horta waa kuwan weydiyaarsan yihiin hadda yarkaan aad u jeedo fiiri gacantiisa ma aragtaa sa ha yarkaas muxuu ahaa muxuu ku dhacay yarkaas ayaga dhan waxaan dhan waa la wada dilaa soo ma jeedin dhiiggii baa ku yaala hadda waa kan mar dhawaa hadda la garaacay asigaa kula hadlaya waa kan dhegeyso igu dhiib baro halo magaca walaal magaca ii sheeg cabdinajiib maxamed walaal cabdinajiib sidee lagu helay maxaa ku daaray meeqa sanaa joogta halkaas walaal sanad baa jooga reerka xabayimahayo walaal meesha ku dhigto cuntada masiyo bir baa lila dhacaa haddaa arkaad nolosha ku jir nolosha dhan baa nicleed walaal wejigaa ku aadi kaamirada xoogaa mugdiga ka fogow iftiinka baltag miyay aragtaa ha magacaaga ii sheeg wallahi cabdinajiib maxamed walaal wallahi bilahi talaata maal cunto limasin cunto maxun anoo saasa birla saddexa korkayga fiir wada barbarananahay waa gart goormee timid adiga libiya goormee timid yaa walaal goormee libiya timid sideed sanad baa jooga libiya sanadaa joogtaa mana liisii dhinaa bilaa maalin kasta la sii dhacaa waa hagaag waa mahadsan tahay yaa kaloo jooga meesha dadkan oo dadka kale bal waxaan rabaa wejiyadooda iyo dumarka oo kale waxayna hal mar midaan ku tusaa oo yani carabta inay dhagax dul saareen ay dhaheen yaan laga qaadin ilaa iyo yani maaragtaa berita subaxaan ka imaano ma garatay maxaa dhagax loo saaray wiilkan waaye waxay dhaheen muddo sanadoo nala joogaa ilaa hadda lacagta lagama bixinin anagana qofka ma qaadi karno yani maaragtaa lagama qaadi karno ilaa iyo ayaga ay ka yimaadaan ama teleefon ay kasoo diraan ay dhahaan yani lacag dhagaxa laga qaado wiilka soomaaliga ma la hadli karaa hadduu soomaali yahay ha waa la hadli kartaa halo xoogaa ka hor leexi ninka iftiinka wejigiisa rabaa walaal maxaa dhagax lagu dul saaray walaal sideed kun dollar liga rabaa ilkii baa liiga riday gacan baa awrka ahaa dhagax baa lay saaray aad baa u dilnahay meeshan waxaan joogaa muddo 11 bilood ah wakaasa waa soomanahay ilaa hadda ma afurin wakaa biyo cad xataa ma cabin marwalba waana la dilaa ilkaha saare bal waana la dilaa ilkiiga kuwaasa sawaarti kariyaasoo muuqayin subxaan allah sawaarti waa mahadsan tahay wakaasa ilaa haddana ma afurin waana soomnahay maxaa imise maalmo dhagax ku saaraya marka yaa walaal dhagax meeqa maalmo ku saaraya dhagaxaas dhagaxa saddex maalmo buu saaraya waa hagaag igu dhiib yarka niyo adaa u dhexeeya marka wiilkaas dhagax ma laga dejin karaa lacagtiisa waxaan isku dayaynaa bal in lasoo fududeeyo dhagax ma laga dejin karaa wallahi abti horta niyo aninka yani meesha iska leh anaga horta amarkiisaan sameynaa wax ka badan ma sameyn karno adiga u dhexeeya haddii aad la hadasho aad tiraahdo lacagtaasi waa la bixinaya waa la damiinanaya anaa kula hadlaya lacagta anaa damiininaya dhagax ma laga dejin karaa ninkaas haddii aniga aan saas ku dhaho oo aan dhaho lacagtiisa waa la bixinaa dhagaxa ka deji oo aniga aan damiinto yani xilligii muddada la qabtay waqtiga la qabtay la dhiibi waayo lacagta anigaa dhulka jiifa ma garatay ilaa iyo meeqa maalin waayo meeqa maalin lagu haddii aan nahno isbuucan lacagtaas lagu bixinaya imis wey lacagta wallahi hadda canugaan 8,000 dollar laga rabaa muddo sanad ku dhowna wuu joogaa ma garatay waa ta adi ma damiinan kartaa dad badanna oo soomaaliyeedna way ku daawanayaan dadka meeshan fadhiyo dhan hadda haatan ii muuqda dhammaantoodii ma soomaali ba waxaan dhan wax kulli waa soomaaliniyo kulli wax yani aan soomaali ahayn kuma jiro kulli waxaan soomaali ahayn kuma jiro aniga macnaha hadda yani programka adiga ku diyaariyay dadka aniga yani wixii roo aligu sameeyo programka inaan sameeyo haddii la ogaado yani maaragtaa aniga bas ay dhamaanaysaa inta marka habeenka xerada keligaa joogo yani maaragtaa waxaan rabo waa idin sameyn karaa laakiin maalinkii ma awoodo in waxyaabaha qaar aan idin sameeyo
canugan maalinka dhagax markuu saa u saaran yahay habeenkii markay carabta iga tagaan anaa ka dejiyo markay imaanayaan ama albaabka ay soo gargaraacaan oo ama gaarigooda aan maqlo haddana waan soo seexiyaa sidiisaan dhagax u saaraa ma garatay وهجاج hadda mukula joogan liibiyaanku ma joogaan aan filaya xarunta waxaad yani liibiyaan ila jooga male hadda canuga saan ay tahay dhagaxa waa ka soo dejiyey waa kan hadda waa keenay soo ma jeedid hadda gaarigooda soo hadda soo yeero waan qabanaa meeshiisaan ku celinaa dhagaxiisaan ka dul saaraa si yani maaragta hadhow yani aysan aniga ii qabsanin wiilkan hooyadiis magaciis aabihiisna magaciis bal hooyada magacay siraad farax raage xagee ka timid walaal magacaaga igu celi magaaladee ka timid adi magaaladee kasoo tahriibta walaal waa hagaag waxaad ii sheegtaa imisa maalin ayaad ku jirtaa xeradan adiga wax lacag ah oo lagaa qaatay ma jirtaa aniga hore waxaa laiga soo qaaday 5,500 hadda xeradan waxaan joogaa bishii 8 baa soo galay Soomaali garan haye bishii 8 hadda muddo 11 bilood ayaa laga joogaa hadda waxaa laga rabaa 8,000 dollar laga rabaa 3 maalmood baa adirtaan dhagaxan u saaran yahay Soomaali garan waa gartay رمضان كوب لا أدرتها حونا لما سيوان الدلاء أفر لا تجا سعوان الدلاء ليبيان بس قال أولبان الوقرة عاي الكي يقول لي قريدي نبران بدن بيقول فيلوين بان الوقرة كرنت حسن الوقبة والله سما ذكر وما سنتها يقول على نيك كلا يقول هي ليبيان كيو أو يقول لي ولا الواحد دونيا إن الله هدي دمر كجران قبل الصوماليات مية كجران dumarkii aaway neefta dumarka way joogaan ma garatay dumarka way joogaan ayagana meel gooni ah lagu haya xataa looma ogola in loo tago laakiin ayagana habeen dambe isku daya in ay yani maaragta waardi adagan banaanka dhigana markaan waardi adag banaanka dhigto ay yani maaragta aan gabdhaha ayagana programkooda ku soo saxaado ilaahay waxa ii muuqda anaga meesha cabsi ku joogno وهجاج dad badan ay isweydiinaya adiga sida arintan ay kugu saamaxday inaad barnaamijkan aad fududeyso oo adigoo naftirkaaga u dhaxeeya oo dadka Soomaaliyeed adigoo halkaasi jooga sidee kugu soo gashay live kan inaad isiiso oo aad dadkan Soomaaliyeed aad arintan ku saacido horta xerada waxay tahay abti xero yani liibiyaanka way ka tagaan suuxi hore habeenkii hore way iga tagaan suuxi iimaadaan waxaad garatay ma yani suuxi hore markay iimaadaan ilaa iyo habeenkii ay la joogaan habeenkii markay ani iyo wiil kale Soomaali ah iyo qolo kale ayagana oo Nigeria iyo Jazul Qamar isugu jiro meesha xerada waardi ahaan kor ka hayo dadka Soomaalida aniga haayo oo yani wax walbo yani ayaga ay rabaan ama yani maaragta liga wareystaa programkan inaan sameeyo hadayaan ku tashtay waayo aniga aad iyo aad u jeclaa in Soomaalida inta ku dhibaataysan يعني ما عرفت أو لساعد ما أنت تجري عند تساعدين أنا ما عرفت أنا أقول له هذا برنامج الله برنامج كان تساعدنا إذا سمعيه أو واحد وقوق بكرة قبتان وهجاج هذا طول ما صرت هاي إن كنت داشيد مر والبا ضد كان صوماليات إن ضد كان الجراعة يو ضد كان كانوا دباتة السنة حانت الدراسة يو إن إسكود دايس إن تفوضيسو ضد بدنا كده وانا يو حرجينينا إن باهيهودا أي مركزي قف والبلشة الصومالية أي واحد قبض ترجينينا يا كانوا دبان أو مدة جوجة حرادة عدنا توسي كتاوي حجرو ضد كرب بدن أو مدة لا أي هاجرو أو نرول إيجاري لوهينين أو هالكان الجوجة. والله بالله حتى لو كانوا كلامك كاغا ورمو أنا كان وحوجوغا مدة يعني ما رأيت السنة دي 6 بلودا إلا يهدا السوق ولي ما رأيت تلفون قراعنا الصبح والبنا تلفون قراعنا ودي له مرة حاجر توكر أنت تذكر لو أديك سلو أنا بري إذا فيديو يعني قرصودي كاغا سوق هذا يعني دبانتوني كبدنا ماشي لغاية أنا فيديو قرصون كاغا سوق هذا أنا كما أقول هنا فيديو دوه لكن هذيك وحيابا قارن قوسا ما بل إيدي بقى لهلا السجن دوني أنا لهلا يعني
ولا المقعة هالو ها مقعة هلا مر على عوال مر على عوال اللي داول مش محن شو سنة كدوة دوان شو مال ده نبر على الدعاء تلفون وحن قرعنا ملك ehelkaaga xagee joogaan adig magaaladee ka timid markii hore حكيم هذا يشوفيو Ethiopia ka xagee قدي bal ka waran adiga noloshaada haatan iga sheekay maxaad cidi u wici weyday muddaad halkani joogtaa cidi way ku walwalaysaa مش هذا السنة يسدع بلدوان شوفا مش ما عندي أنا برال إلى دعاء هذا وحن عنتم عنو هدي هبين بقولي قراعة مركو واسير سنيو magacaagu saddexan ii sheeg نور على عوالي nuur cali cawaale marka maxaa lagu xijiyay lacagta لحد يقول حسيني سيد كون إيو يسدح بقول لعقة دن أو دولار Ethiopia ilaa iyo Libya imisa ku timid إثيوبيا اللي مش كنت مع ده ها مؤجي تام مؤجي soo adiga lacagta ma bixin مبحن وحبا مبحن هالريال مبحن waa iska soo lugays intaas ma Suudaan lugaad ku tagtay انت وين سعوديون waa gartay waa tahay waa hagaag marka 8 kun haatan laga rabaa ya يا ما ادري kaamirada wajiga ku aadi اوكا haye maxay tiri marka hadda maxaad dalbanaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadkaaga iyo ehelkaaga iyo ummadda Soomaaliyeed oo idil maxaad ka dalbanaysaa waxaan ka dalbanayaa inay meeshan ummadda islaamka ee meesha ku wada jirto dhammaanteed in laga wada saaraan ka dalbanayaa waa tahay waa maasanta ilaahay idin soo rafaadsan oo dhan waa hagaag waa tahay ati waa hagaag haa haye maxaa kale ku qabtaa waxaad ii sheegtaa gabadhii oo shalay videogeeda la soo dhigay la garaacay lacagteeda waa la bixiyey ma la sii daayay waa la bixiyey haa dhammaantooda gabadhaas waa la sii daayay wiilashii kalena labada wiil kalena labada wiil kale ma la sii daayay lagu dhigan yahay waxyar ka hor ayaga dhan way madalsan yihiin waxyar ka hor waxaa la qaaday dad oo yani maaragtaa Yurub aaday dhammaantood marka nin waxay leeyihiin maanta dhan waa ayaga dhan way faraxsan yihiin anaa waxaan dhahnay oo dad saasa ila soo xiriiray dadkaas inay idin saacideeyaan rabaan anigana waa ku faraxsanahay maanta intaas idin sameeyay dhammaantooda sidii hal meel isugu wada keenay weli waxaan yahay yani maaragtaa hadii bari markii carabta timaado ku sheegto in aniga aan video duubay haddaba ayaga u taalaya dhammaantood waxaasna waa kala hadlay sidaas darteeda aniga arrintan u sameeyay waa hagaag waa mahadsan tahay gabadhii waa baxday oo lacagta waa laga baxshay gabar kale jirtay oo iyadana oo hooyadeeda ifa joogto iyadana ma la sii daayay maya gabadhaas anaga ma ahan waa xeradayna maan xero kale waa iyadana laakiin waan raadi karnaa hadduu ilaahay yidhaah laakiin gabadhii kale hadda lacagteeda laga bixiyey oo lacagteeda weli oo yani maaragta aan lasoo qaadin aan joogto laakiin iyada laftirteeda oo kula hadalsiin karaa hadda gudaheeda isaga jirtaa way raaxaysanaysaa hal su'aalaan rabaa dadkaas inaad ii weydiiso inay ma doonayaan waddankooda inay dib ugu noqdaan in dawladda Soomaaliyeed ee dalkooda ay ku celiso ma rabaan bal su'aashaas ii weydii hal mar soo weydiiyay su'aal ah ma doonaysaan in yani maaragtaa meeshani laga saaro oo yani dib waddankeeni lagu celiyo حكومة علمها يا ولاد
mid ka mid ah migu dhiibi kartaa wiilasha ها هذا وكوكو ديبي كرا وكوكو ديبي كرا الو xagee ka timid walaal الو xagee ka timid walaal Ethiopia kiimaada walaal meesha sanad baan joogaa walaal haddii aad heli kartaan waddankaana inagu celisaa walaal waan rabnaa waan rafaadnay waan dhimanay walbaan bir bay nagu tubaan walaalo waddan wax noo qaban kartaan dad islaam haddaad tihiin walaalo meesha naga soo waxeeya walaalo waan dhimanay bir bay nagu direen waxba ma cunno maalin alla keena qoraada nagu direen qoraada xaladka yaale maanta wal xaladka meesha yaale habeenkama saacan karo feeraha xanuunaya walaalo waan doonaynaa inaan ugu dabalka annaga ku noqono waan doonaynaa haddaad dad islaamka tihiin meesha naga soo furto allo walaalo dhibanay ma noolin waa mahadsantahay walaal waa mahadsantahay ati midaada kale hadda waxaan banaanka usoo bixiyey gabdhihii banaanka usoo bixiyey waa codsaday in lasoo bixiyo gabadhaan hadda ujeedo muddo waxay joogtaa yani ilaa ay meesha ku laga beesho ilaa waxay nala joogtaa muddo yani maaragtaa sanad iyo 6 bilood marka yani maaragtaa xataa ma istaagi karto way gariiraysaa waxaa kaloo nala joogto iyada maamadan nala joogto aa ujeedo gabadhana waatan hadda gabdhihii ayaga dhan banaankan soo saaray maamada marka iyada maamada la hadal adiga macnaha wareeso haye maamadii ugu dhiib kada wejiga dhaaf caadi maama السلام عليكم وعليكم السلام ماما ساتحي oo fiicanayo iyo meeshan aan ku dhibaataysan anagoo cayla ah oo meeshan maaragtay ilaahay amarkiis baan ku nimidnay qadana lama siiyo quraana lama siiyo waan ku dhibaataysan dhibaatada ugu xun baan ku jirnaa haddii aad wax noo qaban kartaan noo qabta hooyo goormeeti midalkan goormeeti midalkan waxaan imid bishii tobnaad baan bishii tobnaad haye hooyo magaalada ka timid ilmaheeda waaye yaa hooyo magaalada ka timid waxaan ka imid boosaasan ka imid hooyo ilmaha adiga ma dhalay ilmaha haa anaa dhalay haye ka wara xaaladooda xaaladooda hadda way fiican tahay waxba wax dhibaato ma qabaan de waxa weeyaan ilmaha iska noolooda iska bilaa waxbarasho ah mustaqbalkoodii waa dhumay mooyaane way iska roorooyihiin hadda iyaga wax waa la siiyaa kolley annagase waxbana lama siiyo hooyo sidee halkan kusoo gaartay adigoo carruurtaasi wada sidee liibiya ku timid waxaan ku imiday afduub baan ku imid kolkii hore yaa ku afduubtay waxay afduubtay maaragtay kuwo maaragtay waxay yidhaaheen meel baan ku geynaynaa aan maaragtay aad ka shaqaysato ood ku noolaato nolol fiican ku gasho adyaan ku geynaynaa kadib waxayna geeyeen maxaan ku dhaayeen kadib waxayna geeyeen masar baan idingeynayna ma yidhaaheen kadib waxayna keeneen halka liibiya nagu soo shubeen markay nagu soo shubeenna waxay nagu soo dulleeceen waxay yidhaaheen intasoo lacag laydinka rabaa kuwaasi xaggee idinka soo kaxeeyeen ma boosaasa idinka soo kaxeeyeen may boosaaso nagamay soo kaxaynin xaggee idinka soo kaxeeyeen annagaa ka nimid xaggee idinka soo kaxeeyeen kuwaas boosaaso annagaa ka nimid kuwaas xaggee idinka soo kaxeeyeen hooyo waxay naga soo kaxeeyeen Itoobiya naga soo kaxeeyeen carruurtaada ma la hadli karaa nacam Itoobiya markay naga soo kaxeeyeen waxay yidhahdeen ma la hadli karaa oo ku dhaca la hadal si caado dhib ma laha Hello. Hello ها سيادتها walaal nabad walaal magacaa waxaad idhaan khadra daahir xaggee ka timid qadro hooyada balse anaga hadda isaanta kula hadlaysa dawaa hooyada aniga iyo hooyada iyo gabar kale iyo laba caruura ha ka waran noloshiina ka waran walaa noloshan
haye imisaan laga rabaa waxaan laga rabaa litirkiisa dad kun iyo 500 waa mahadsan tahay gabadha xanuunsan igu dhiib gabadha xanuunsana hello waxaa isaa tahay walaal ma fiican tahay fiican wallahi walaal see lagu hayaa lagu hadhan bay xanuun jidhkoo dhan bay xanuunayaan marka haye wax dhibaato oo lagu geystay miyay jiraan oo jirdil iyo waxaasi ha walaal dhayda waa la jiraa walaal adiga xaggee ka timid markaaga hore anigu Ethiopian ka yimid walaal magacaagu saddexan hoodo maxaa lagugu daraa hoodo diiri Axmed hoodo diiri Axmed marka meeqa sana joogtaa hoodo sanadiyo laba bilood hadda lugaha sidee wax ka yihiin sidee lagu hayaa bal ii sheeg lugaha marka raximka wallaha gariirta kama socon karo haddaan sidaa kacwoon gariiraya gabigayga markayga xaaladayda arkaysaa walaal suuliga ma tegi karayo xitaa waa gartay الله كعافية هذا الله كعافية إن شاء الله أمة الصوماليات إيو دولة الصوماليات وأنا وحرجينا يا إني باقي الجيران إني جاري دونا بريالك يقولي إن شاء الله وحايشك مقالة جوجان تتكن مقالة جوجان والله أبتي هذا يعني ماشي دوام وماشي كري أنا قلت أنا مال يعني سحراء وهاي ما قرتي يعني أن جوجنا مال سحراء وحواي ويعني ما رتها ومقالة كذا وين واحد مقالة وما أنت لوده ولو ما قاعد كرو ما جرت هذا دوما سنتهي واجبا كسارن وكل دردار ما يواجبا كسارن dadkaas marka la dhibaateynayo ila isku daysid inaad dhibaatada ka khafiifiso waxaad kaloo samaysaa dadka ugu daran oo abti wallahi fiiri aniga been kuma sheegayo waxaan sameyn karin waan sameynaa ma dhihi karo ummadda Soomaaliyeedna uma balan qaadi karo meeshaan yani waxa iskala dad caraba يعني أنا أيها وحبا مدامو كستا يعني وحان داما ويعني عن سولينا قلايو حرنما عن سولينا كو قلايو أنا أغسو بحايو بس ما وحكلو زيادة مداماني مركا قار بريو كان عاد مركي مادان أو يعني عرفت مرة قار يقراعان وحاجر مان تدقي بلانسن وأنا دتك وضو الله هذا مني لعبت ويسودر عيان بريد دتكاس مسكن دا يعني ما رأيتا عديقو سودر وايو أنا مركي يعني ما رأيتا أمقن يعني ودد يعني أي حد مرة تقدرنا أنا جمرنا ما قرأتي. واقرت دتك عاوب حي إمسي جاري تريدو. والله دتك عاوب حي إلا يوحي جاريان بقول يسديتهم قصور يعني ما رأيت دتكاس ندو حي استهو بناين ماشي كوميس الراجل إلا يو هذيك وحي العطف كل ما ين إلا يو طبعا تضوي شو إحساس عمل إن متجوجين دتكاس لأنه دت لعك هيسو وحمير صوت اجتماعيا لكن ودتك إن ما أنت وحلو قبض الرباط دت كان ماشي فليه داري أوجه الدواء. تردد ميقوي دت كان. تردد ميبي وحي هذا جاريسا خدوات إلا يو الله بخل يو لحد جاريسا دت كلو حاجرو وأيضا مير كلو كجرو لكن ماشي هذا يعني وأنا عليه وإنانته وما قرأته. مركا hadda 200 iyo wama zaada halkan fadhiso qofkii meeqa laga rabaa wallahi qofkiiba yaani ma aragtaa lacag 8,000 inta ku fadhiya waxa la sameeyaa qoladan waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan yaani qaar Soomaaliya ka yimaadeen qaar Jigjiga ka yimaadeen qaabka ugu yimaadeen waxay tahay ayagoo waxay tagayaan qolo yaani ma aragtaa dadka soo wado qolada dadka soo wadana la soo yaani dadkan la soo xiriirayso waxay ku leeyihiin dad 10 qofood arabna inay idin soo dirno lacagtooda soo dirsada lacagta Liibiya laga diraa xagga markay ka qaataan يعني وحال سو غارسيا السودان markii la soo gaarsiyo qolo kala qabato hadana qolada kala lacag loo diraa waxaan meesha fadhiyo wax maanta 1000 shilin ka soo baxay oo inta jooga ma jiro dhamaantooda lacagtooda lagu bixiyay nafar walbana inta waxa lagu keenay lacag $6,000 وهاجاك adiga imisa sana joogtaa halkan imisa sana joogtaa halkan aniga sanad iyo 6 bil adiga maxaa u bixi weyday aniga
يعني مارسا قابان كوبحو يعني معنا مجلس ما أنت كان يعني يقرج في عن قفك إيمانايو لعكس ديبنايو بحايو ما أنت يعني مارسا وحني أسان قلاي هاي إن أسيج حكومة ما هي وحنا هاي إن يعني مارسا له حكومة والله هيستو ما قرتي واقفتي maanta yani haddii lagu dhaho shaksi Soomaaliya Liibiya joogo ka shaqeeyo haddii lagu dhaho shaksigaas yani maaragtaa niyadiisa ma ahan inuu asiga uu ka shaqeeyo ee xoog yani maaragtaa qasab uu ku shaqeeyo waxaad gartay Soomaaliya maanta shaksi Liibiya joogo oo Soomaaliya oo asiga xornimo haysta ma jiro suudaan Soomaaliya joogto oo arinta ka shaqeysata oo dadka soo wada Ethiopia sidoo kale Hargeysa Boosaaso Muqdisho waa sidoo kale Soomaha dhamaantooda sidoo kale waay وهجاج أنا ما حسنت هاي برامج كان أفضلسي تلفون كاجو عن كسر هلاي قوسس كي شل الدباتين أي قف كم إذا قوسس كاس تلفون كاجو يصدر هل كاس عن كهلاي سياسا كولس وحريري إلا حاله يدوم كولس وحريري أي إنك سوساك تلفون كاجو قبطي وحرجينا يا وحيالها عصب يو دباتوين كان سومالي ضد كان لجوها يوادد كاني إن الدور كاجات كعيارته ودريم كلا دباتها كوجتا حد ويكاك المغيه وافضلسي dadka Soomaaliyeed oo dhanna la socdo waxaan rajaynaynaa macquul ma tahay ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo dadkan haddii Suudaan lagu celiyo Suudaan ma lagu celin karaa oo hadhow Suudaan in laga qaado dalkii lagu celiyo suuragal ma tahay arrinkaasi horta arrinkaas suuragal way tahay laakiin qolada haysato waxay tahay haddii yani aniga waan idin awoodaa in macnaha qolada aan si tartiib ah aan u dhahooniyo barnaamijkaas jiro dadkan lacagtiina waan inaga siinaa laakiin idinkan waxaan idinka doonayaa in dadkan yani maaragtaa oo gawaaridooda aad saartaan oo Suudaan ku celistaan safaaradda ku sintaan haddii inta aan dhaho yani maaragtaa waa laga yaabaa inaan ka dhaadhici karo inkastoo yani maaragtaa hadda aan ku bilan qaadi karin oo waan ku sheega aan ku dhihi karin laakiin arrintaas ayagana Soomaali oo yani sidaan oo sidoo kale ayagana si xoog ah ku shaqeeya jiro qoladaas arrintan la kaashana haddii yani ay dhaan u wada sheegeena markaas oo ku sheegayna waxa jawaabtaan haweentan baan ku soo siinaa telefoonka arintaas isla xiriirno isku day dadkaas ina ka dhaadhiciso lacagahaas oo dhan lama bixin karo waa lacago badan dadkan aad u badan yihiin lacago macquul ah oo kooban in la siiyo qolooyinka Liibiyaanka ah dadkan gawaarida in la saaro safaaradda Soomaaliya iyo Suudaan in lagu simo hadhowna Suudaan markaas ayada safaaradda ay la wareegto oo dalkii dib loogu celiyo dadkan oo idil sidaad u jeedo wadankood inay ku noqdaan way rabaan marka la igu celiyo wadankood inay ku laabtaan ma doonayaan su'aashaas ii weydii mar kale aaday oo rabaan war haddii yani maarta intan laga saaro in wadanka ku laabataan ma rabtaan dhamaantooda diyaar u yihiin maanta yani wadanka saaris iska daa maanta diyaar waxay u yihiin hal mar in qori loo soo qaato la baabi'iyo diyaar u yihiin يعني مالك ديك ماشي كو هيستا كبدن aad u mahadsan tahay aadan kaaga mahad celinaya caawo wax ma cunay walaalow والله لبي تونك بري الصوم كسعد والله العظيم نكي قانا لو دارتاي إننا وقتك إننا لبي تونك بريبة حال سيرنا وعطافك ليجن بيوم بان عباء وحكم الله سيمتر تركي في حساسية وحان شوغا سنة يصدح بلد بان شوغا تركي تسمي يقول دمتي والله ساعات كسو وحان كو حساب تما بس بالبلغسي وما دمان مسكتان بعد دمان اسمني مير باو سocotay rajamina toornay hadii dalkayga lagu celiyo maanta waxaan diyaar u ahay in dalkayga uu dib ugu laabto oo waqtigiga khasaaray aan xurriyadii Liibiya laga qaaday xurriyada dalkayga dib ugu laabto xurriyadaan helo oo baasata walaalaha natiijin naga soo saar meesha iska dhigay walaalayaal hada walaalaha natiijin walaalayaal ma sanito ayo ayati وما سنت ولا السلام عليكم وعليكم السلام ماما هوي مقعة هوي سلمان وي تمام ليبيا كي متسمانو يعني تلفون كجراتي هايغا غاري ولا سوقينا كويس
وهاجاك ولا ليال aad u mahadsantihiin waad u jeedaan dadkii Soomaaliyeed dhibaatada haysata iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin waad u jeedaan qabyaalad iyo qurun wax ma tarayo waxaan yahay dhibaatada haysata ku dhawaad taysan marka sidii dadkaasi loo gargaari lahaa in howshoodii la galo haddii suuragal noqoto in la geeyo Suudaan laga fududeeyo Suudaan la geeyo Suudaan safaaradda Soomaaliyeed halkaas ay damaanad qaado ay la wareegto dalkii lagu celiyo dhalinyarada sidaad u jeedeen waxay diyaar u yihiin wadankooda in lagu celiyo ayaa ka go'an in wadankoodii lagu celiyo ay diyaar u yihiin dad waxa ku jiro muddo la la'aa oo qoysaskoodii nolol iyo geeri kulay meel ay joogaan la leeyahay laakiin sida muuqata yarkan telefonkiisii gabadhii shalay la garaacayay iyo labadii wiil la garaacayay mid kamid ah eheladoodii ayaa telefonkan ii soo diray xaliyo dhan la xiriirayay ilaa iyo xaliyo dhan ayaan la xiriirayay telefonka ma uusan iga qabanaynin maanta ayuu iga qabtay wuxuuna ii sheegay in barnaamijkan uu caawa uu sameeyo dadkaasi meel isugu keenayo markaan arinta u bandhigay waxyaalo badan markaan kala hadlay aan u sheegay dadka Soomaaliyeed in dhibaataysan yihiin isaga arintan magafo hala shaqeysto musiibo iyo san la shaqeysan naftiisa waxa nooga muhiimsan boqolaalkaasi Soomaaliyeed in naftoodii la badbaadiyo ayaa markaas ayaa muhiim ah waxaad la socotiin qabyaaladda inaysan waxba tareenin reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel inaysan waxba tareenin liibiyaankaasi waad u jeedaan sidii dadku u galay caruurta sidii u dhibaataysan yihiin hooyooyinka sidii u dhibaataysan yihiin gabdhaheena Soomaaliyeed hooyooyinkeena Soomaali qaarkood inay curyaameen oo lugaha ay beeleen wiilasha sida Soomaaliyeed waad u jeedeen wax ka muuqday marka waxa wanaagsan qabyaaladda in la iska dhaafo Soomaaliya isku tashato nabadgelyo